maanta saaxiib aad baan islaamay waa dareemayaa maanta dad badan baa qadeeyay suuqa aad u qurux badan yahay wada cagaar weeye saaxiibyal cagaarkana saaxiibyal indhaha iyo qalbiga buu dabcan u roon yahay PTC baa si fiican saaxiibyal u dhaqaaqday shalay hadoo kale waxay maraysaa 88 kun oo indhaha haddii jabiso 9 kun haddii jabiso si fiican bay usoo dhaqaaqi doontaa saaxiibyal 94 kun iyo 300 dollar bay maraysaa kaliya afar labaatan saac u dambeeyay 6.68% bay soo kacday runtii waa la qadeeyay waxa weeye coin badan baa saaxiib runtii loo qaday saaxiibyal bitcoin haddii 100 kun gaarto si fiican baa markaa loo qadeynaya waliba haddii 100 kun dhaafto waxa weeye coin badan baa la dhaqaaqi doono sida saaxiibyal solo kale markaas faa'iido laga qaadan karaa haddii bitcoin saaxiibyal 100 iyo xoogaa kun sidii waagi dhawto kala gaarto coinka laga qadeeyay saaxiib waxaa kamid ah coinkan Zui labadii bilood si fiican baa loo qadeeyay oo saaxiibyal faa'iido badan laga qaatay 26.90 almost saaxiibyal 27% buu ku dhow yahay marka waa dareemi karaan Ethereum laftigiisa ma yaraysto 12% buu kor u kacay XRP 10 buu saaxiibyal ku dhow yahay guud ahaan saaxiibyal suuqa u qurux badan saaxiibyal mar haddii dhaqaaqdo BTC the rest will follow normally qaabkaas u shaqeysaa indexka haddii aad fiirisaan VIR and GRID 52 maraya neutral buu maraya cabsina ma jirto waxa weeye GRID iyo FOMO saaxiibyal ma jirto 52 maraya runtii marka 100 kun baashan gaarto bay dadka waxa weeye GRID badan dhaqtaan oo sabab FOMO badan dhaqato dadku normally marka saxdaas oo kama soo galayaan marka cagaarka badan bay mostly soo galaan dabcan saaxiibana waxa la inay idin wadaago niyuusyada u dambeeyay suuqa 24 saac u dambeeyay marka aad cumrada iyo xajka aadayso waa suurtagal inaad ilowdo kaarkaaga bangiga laakiin waxa suurtagal ahayn inaad ka tagto mobilkaaga oo uu kugu jiro Wafi Digital Mastercard ku dukaamayso ku jira tigidhada ku isticmaal ATM-yada ku bixi biilka hotelkaaga Wafi Mastercard saaxiibka safarka iyo dalxiiska sababtii masaaxib waxa furnay wargeys ugu horeeyay af Soomaali crypto news iyo guud ahaan masaaxibka technology-ga waana kan ugu weyn buu noqon doonaa dabcan group baan kusoo qori doonaa news ku dambeysay maalinla ah meeshaan ka heli doonaa saaxiibyal crypto.com baa dhahaa haddii aan ku bilowno saaxiibyal ETF-yada waxaa maanta la iibsaday 10,430 BTC sidoo kale waxaa la iibsaday 24,580 ETH ah marka kale yaqaan saaxiibyal Ethereum Bitcoin ETF waxaa maanta soo gashay saaxiibyal 900 milyan net inflow baa soo gashay halka Ethereum halka ETF ay maanta soo gashay saaxiibyal 38 milyan net inflow that's why I can saaxiibyal suuqa in laga qadeeyo dabcan faa'iidada waa qaadan karaa basically suuqa xirkiisa way saaxiibyal haddii ay ka qadeysay faa'iidada qaada haddii long term aad tahayna iskaga jir haba faa'iidada ku degan bitcoin marka 100 kun jabiso oo dhinaca kale ka marto 100 iyo xoogaa kun gaarto markaas waxa saaxiibyal xiliyada ugu fiican oo faa'iido weyn oo qurux badan aad ka qaadan kartid tan kale saaxiibyal bitcoin maanta score bay jabisay bitcoin waxay dhaaftay shirkadda Google kala horeynta waxa loo yaqaan mataqaan hantida adduunka kaalinta shanaad bay gashay marketka ahaan marka loo fiiriyo hal mar waxa soo dhaaf saaxiibyal Amazon iyo Silver iyo Google soo dhaaftay BTC sa ujeedaan markii aad wax ka horeeyay Nvidia Microsoft iyo Apple boqol kun hadii karto waxa weeye meel fiican bay tagaysaa boqol iyo kun hadii karto dabcan kuwan kalena indhaha ku dhufanaysaa dhankan saaxiibyal shirkadda Tether stablecoin iyo USDT kala waxay maanta daabacday 1 bilyan oo USDT blockchain waxa ku daabacday dabcan True waa ziyaaranaya dabcan waxa weeye suuqa markuu ka cabal lacag badan bay soo daabacaan si fudud badan baa raba inay ka taan saaxiibyal cryptocurrency marka already waxa ku bilaabaan waa coinkaas stablecoin-ka waxaana si loo yaqaan saaxiibyal USDT dhanka la saaxiibyal gudoomiyaha cusub ee SEC Powell Nick loo yaqaan wuxuu ballan qaaday inuu dhiso doono xeerar nidaamsan oo cadaalad ah sidoo kale loogu talagalay hantida digitalka ah sidoo kale hadal uu ka jeediyay saaxiibyal White House waxa saaxiibyal tweet post ka soo qoray ninka loo yaqaan Michael Saylor oo yiraahday ninkaas waxa weeye Bitcoin uu fiicnaan doonaa he will be good for BTC wax yar hadda hadalkiisa gudoomiyaha idin sii daayo A top priority in my chairmanship will be to provide a firm regulatory foundation for digital assets through a rational, coherent, and principled approach. We will work to ensure that the United States is the best and most secure place in the world to invest and to do business. dabcan saaxiibyal saa ujeedaa ninkaas waa pro crypto way iyo pro waxa weeye BTC meel fiican buu gaarsiinaya baa leeyahay oo shuruucyo fiican oo friendly la ah suuqyadan digital asset-ka uu soo saari doonaa dhanka kale saaxiibyal madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu soo qorsheynayo inuu shaqada ka eriyo ama ka qaado Nicolas Jerome Powell
isagoo u rajeeyay inuu ku dhiirado inuu hoos u dhigo dulsaarka kaliya wuxuu taagan yahay dulsaarka hoos ha loo dhigo waxa weeye laakiin maalmaha waxa socotay inuu xilka rabo inuu ka qaado inkastoo aan dhowr ka soo hadlay xilka uusan ka qaadi karin waxa weeye ninkan xilka lagama qaadi karo kaliya Supreme Court-ga maxkamadda sare dalka Mareykanka baa ka qaadi karta ayadana ilaa uu dambi sameeyo bay u qaadi kartaa maana si kale ugama qaadi karta marka awood uma lahan hay'ad madax bannaan weeye hay'adan Central Bank saaxiibayaal hay'ad madax bannaan saaxiibayaal Fed-ka ninka haysto waxa weeye ama Central Bank-ka Mareykanka saaxiibayaal ee mas'uulka ka ah marka dabcan saaxiibayaal tan waxay ka dhigantay inay isu soo dhawaadeen ninka shaqadiisa si fiican u qabsan doono si caadi ah madaxweynaha markasta uu weydiinayo awal si xoog uu weydiin jiray oo qasab ah laakiin taa uu shaqeyn weeday marka hadda waxa baan si friendly ah in uu la shaqeyn doono kala saaxiibayaal Shiinihii iyo Mareykankii afayeenka aqalka cad baa lagu xuna sheegay in si wanaagsan u socdaan wada hadal heshiis ganacsi waxa Shiinaha iyo Mareykanka marka newsadaas baa waxa weeye Kenya saaxiibayaal suuqa inuu dib u soo laabto waxa kaloo macquul ah crypto in la qabsanayso adaptation la sameynayso tariffski waxa kaloo macquul ah saaxiibayaal waxa keen suuqa dhaqaaqa in heshiisyada mataqaana soo dhawaaday waxa weeye in suuqa soo laabto iyo shaqaashkii bari bawska uu qabtay madaxweyne Trump tariffski in ayagana waxa weeye suuqa waxa weeye dhiiranaan badan keenay dad badan saaxiibayaal ku soo biiri doonaan sidoo kale saaxiibayaal Mareykanka ayaa wuxuu ku dhow yahay inuu heshiisyo la gaaro dawladaha Hindiya iyo Japan heshiisyo canshuuro cusub ee ganacsi halkaas sidoo kale waxa jirta Chinese-kii iyo Hindidii in xoogaa buuq isku fureen marka uu ka faa'iideysanaya bay la tahay sidoo kale saaxiibayaal bankiga caanka Standard Chartered loo yaqaan wuxuu saadaalay inay Bitcoin ay gaari karto 200,000 sanadkan 2025 ETF-yadan oo sabab yiraahday ka waran saaxiibayaal Bitcoin oo 200,000 gaarto waa 1x markii 100,000 gaarto waliya qaar waxay leeyihiin 200,000 bay gaaraysaa sanadkan marka wax kasta waa dhici kara saaxiibayaal everything can happen saaxiibayaal cryptocurrency weeye waa volatile market kan markasta waxba is bedeli karo move waaweyn way sameyn karaan kaliya waxa baan marka adiga suuqa inaad waxaaga arustid inta maalgashan kartid maalgashid long term ahana saaxiibayaal u gashid sidoo kale saaxiibayaal Coinbase move weyn bay sameeyeen waxay rajaynaysaa inay hesho ruqsad bangi ka hesha federaalka Mareykanka taas oo ogolaanayso inay bixiso adeegyada bangiyada caadiga sida deposits iyo loanska inay baxsanayaan marka nimanka Coinbase move weyn ku socdaan sidii waxa inay bangiga u shaqeeyaan taasna waxa weeye faa'iido badan bay ayaga u tahay dhanka saaxiibayaal shati kooda ugu weynaa oo maanta trendka waxa u horeeyay saaxiibayaal Ethereum 10% buu kacay BTC la xogta 10% almost ku dhawaad 7% saaxiibayaal la kacay Zui koonka ciyaar maahan koonka laga warayo Zui saaxiibayaal 27 aad u jabay $2 iyo xumaan 94 meel fiican saaxiibayaal sanadkan kala doona Deep iyo XRP baa kamid saaxiibayaal كوينك وحوي شنط وين أفعالات قدام سحب الهواء كلاي وهيك سحب محل كده جنت مرة سحب البيتكوين إيش عشان يأفركم كهرت طبعا ما المقدم به وحلقة علني سحب الإيت بلقى علني يو عشان كده قعدت كاتيني كارتو ريزنس الليفل بويد حد وجه بيصير سان شرب قياسي وين أفطي شيء عشان أفرك هذي دافتين دي موف كحيوة بخلق يكون إنه سحب الأيدنا ونواتو تاسو سحب الكيني كرت أيدنا إن سفي عن مركلة سحب اللغة قضية سوق سحب زوجي دم آد بوقر بديعي حلينا وحلينا مستلي ضد قيب وقيب سمان ضد الفائدة كقطع سوق ضد وحوي سوق وضع واحد ويسيها يستعانوا مستقبل بوكلانه فائدة تنتكوين بهربان واحد عدد سحب ضد كاستحالة مركب بقرهم قارتو ونيوزيلا مركلة قفصان ضد بدل إنه فومو كل عضو أو وحوي isku dayaan suuq inay soo galaan asoo qaali ah marka the best option wuxuu ahaa maalmo u dambeeyay suuq inay soo gala ama suuq basically markuu saaxiibayaal casaanka yahay baa u fiican in waxa weeye dadku cusub ku soo biin haddii hore ugu shiisana DCA waa base strategy way koonankaasi si isa kaaga dhimano dhiig joojin baa aqaanaaniga DCA dabcan waa dhiig joojin كويلك مركز كاسي اللي مانيان أما قيمة صغيرة يعني هنا هوس كسيسي سمركو سوق كعو average وين بالوجود وفنا ما دام different prices هذا كلي يشتري هالك كون ساحب الوحي قبل أنت كبر فضلا ويب سايت كان إيش أكو هاي مقالة عن ساحب الماركس أنا إذا قرنه ومهم كان فضلا آخرست ماشي عن كريبتو سبلاش أو كبر نساء قون وحاس أرتكل لا أفصل ماله ساحب كان وحان كسوق قرنه شلا سوق إنه طبعا كويب سايت ومهمسن إن لا سعودة كريبتو فضلا أرتكل كان سو آخرسو aqoontan ka faa'iideyskays waa resources bilaash ah waxa weeye maalin kasta article la soo gelin doona aad baan saaxiibay in salaamaya ciao ciao